وعن داود soo dhawow waxaan ku hayaa xog xasaasi ah oo ku aadan iscasilaada iyo sidoo kale xilka qaadista la filayo saacadaha soo socda inay ka dhacdo filla Soomaaliya ma la socota maamul goboleedyada muhiimka u ahaa la dagaalanka ururka al-shabaab iyo daacish maxay dawladda uga qayb gelin weyday oo sidoo kale maxay yihiin waxa ka soo baxay saxaafadda loo diiday albaabadana shirkii u xirnaa ay galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada qaar sida maamulka galgudug iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta iyagoo halkaasi ku gaaray shir sidoo kalena soo saaray qodobo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwii ay hoos ka wada xariiqan sidoo kalena ay ku heshiiyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyadaasi maxaa maamul goboleedyada laga tagay wili ay dawladda shirkaasi ugu soo qayb gelinayeen hanaanka ay doonaysay in maamul goboleedyadaani ay kala heshiiso qaabka howla dagaalanka ururka al-shabaab maxaa ka soo baxay mise isku waafaqeen xogta iyo warar xasaasi oo aadan filaynin ayaan halkan kula wadaagi doonaa balse ila joog oo janaalka haduu subscribe ku ahayn subscribe isaar muuqaalkana like saar si saaxiibo badan u gaaro share garee oo la wadaag saaxiibadaada kuugu dhow shirka maamul goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ilaa iyo xalay ugu socday sidoo kalena laga soo saaray qodobo xalay inay ku heshiiyeen maamul goboleedyadaasi iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale waxa uu dhigayaa qodobo xasaasi ah sidoo kale qaabka hanaanka ay dawladda ula dagaalamaysa ururka al-shabaab maamul goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland ayaan ka soo qayb galan sidoo kalena aan lagu casuumay shirkan iyadoo saddexda maamul goboleed kaliya laga qayb galiyay dalka waxa uu yahay federaal sidoo kalena waa 5 maamul goboleed Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ka saacada 3 kaliya oo maamul goboleed ayaa fariistay oo sidoo kalena ka wada hadlay halka Jubbaland la og yahay in gobol kamid oo dhan ay ururka al-shabaab ku sugan yihiin gabi ahaan ay haystaan maxaa kaliya ku koobay in hadii ururka al-shabaab la dagaalanka ay dawladda dhab ka tahay in ay maamul goboleedyo gaar ah kaliya la qaadato shir sidoo kalena ay dhahan qodobo ayaan soo saaray sidoo kale waxa maanka lagu hayaa maanta oo la wada sugaa iscasilaad iyo sidoo kale xilka qaadis ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegayso in ay dhici doonto hase ahaatee dad badan ayaa taasi khilaafay oo waxa ay sheegeen in madaxweynaha hadii uu sameeyo iscasilaad ay dareemaan in ururka al-shabaab dagaalkii ka dhacay aadan iyo darteed ay isku casilaan xubno ka tirsan dawladda iyo sidoo kale in xilka qaadis la sameeyay in ururka al-shabaab ay dhiiran galaan sidoo kalena ay awoodaan in dhacdooyinka maalinlaha ay la falgaleen sidoo kalena dhibaato kasto ay geystaan ay horseedi karto in xilka laga qaado xubin kamid ah oo firfircoon oo ka tirsan ciidamada taas oo ay iyaga laftirkooda farxad gelinayso halka dhacdooyinka maalinlaha lagu sheegay in ay dawladda la falgalin sidoo kalena ay ka fiirsato hadii xilka qaadis ay sameynayso xitaa waqtigan aysan ku habooneen sida ay sheegeen qowarada ammaanka ka faaloodo iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada inta badan ka saaloodo waxa ay sheegeen in haatan hadii ay ka qaado dawladda xil qof kamid ah ama mas'uul kamid ah ciidanka hogaaminaya amaba ah ciidan midka lagu taamay ee taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo dad badan ay maanka ku hayeen in dhacdadii ka dhacday aadan jabal darreed oo xilkiisa wayn doona saacadaha soo aada sidoo kalena ay xilka qaadis dhici doonto halka lagu sheegay in loo dhiibi doono xilkaasi علي جيت عثمان أو أها هجاميه معوسليده قبل كهيران برتمها سوماليا سيدا وقالنا أورك الشباب لقى دجال بان كاس أورك الشباب يوجول يصير بريق قبل كهيران باش حوالي جبيهان وصاري سيدا وقالنا قلبي بشاسي إن جبيهان بأورك الشباب إسكا صار إسكنا حريان ديجانا دون أين كل هذين أين كنا ولعنين أورك الشباب بريق وبيجا شبل هسا haatan mar kale ayaa waxa ay soo cusboonaatay in ay khalad tahay in ururka al-shabaab dartood dhacdo ay dhigeen uu ku waayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah nin dhalinyaro ah dhiiran sidoo kalena mar walba ururka al-shabaab ka guuleysan jira hase ahaatee ay tahay mararka qaar in guul darrada la qaato lana saxo qodobada iyo waxyaabaha aan muhiimka ahayn amaba dulduleelada yarka ay ururka al-shabaab ka arkeen in dawladdan ay dulduleeladaasi aragtay sidoo kalena ururka al-shabaab ay ugu faa'iideysteen inta inay tahay in la saxo kaliya aysan ahayn in xilka qaadis iyo wax weyn la sameeyo ururka al-shabaabna ay taas ku farxi karaan kuna dhiiran karaan in mar kale ay dartood dhibaato u mutaysteen ciidamadaasi sidoo kalena ay xilkooda ku waayeen mas'uuliyiin ka tirsan oo hor joogtay muddo dhowr sano ah sidoo kalena doorkaasi ku hoyanay iyadoo mukeefka magaalada Muqdisho yaal isaga baxay doorkana ay u ahayd hoyd bahalahaasi iyo qoraxdaasi iyo roobkaasina General Odawa uu ku sugnaa muddo dhowr bilood ah hase ahaatee wali ma cadda waxa ay dawladda ka qorsheysan tahay waxaasi taladaasi ay soo jeediyeen dadka ka faalooda arrimaha amniga hase ahaatee dad badan ayaa dhaliilaya qaabka uu u maareeyay
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa dagaalka ka dhacay aadan yabaalna ay ahayd dayac ka imaanay ciidamada oo aan qarabaysan sidoo kalena aan u diyaarsanay in mar kale ururka al-shabaab ama cadawga uu soo weerari karo beelahna ay u yihiin hadii aadan yabaal muddo 10 daqiiqo gudaheed ururka al-shabaab inay dagaal ku soo qaadeen gabi ahaan ay la wareegeen halkaasina ay ku dileen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hor joogay muddo ururka al-shabaab halka iyadoo gobolkaas ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida General Odawa iyo sidoo kale maxkamadda qalabka sida gudoomiyaheeda oo ahaa General Shuto oo isagana muddo dhowr bilood ah ku sugnaa inta u dhaxaysa Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe una dhaxeeyay gobolada sidii ururka al-shabaab mar kale looga saar lahaa halkaasina horjooga ka ahaa ciidankana dhiirigelinaya sidoo kalena mar walba uu ahaa tiiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhiirigeliya dagaalkana geliyo hase ahaatee ugu dambeyn ayaa markaa wax uu fashil ka dhacay aadan yabaal taas oo mar kale keentay in la geliyo muran amaba la dhaliilo qaabka ay wax u qabteen Odawa iyo sidoo kale Shuute aan u soo noqona daawada shirka maamul goboleedyada waxa ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay sheegtay in dawlad goboleedyadaani ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee la dagaalanka ururka al-shabaab laga tashan karo sidoo kalena ay ku dhuumaaleysanayaan howdka goboladani Galguduud Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose iyo Bay iyo Bakool ayna tahay in la xoojiyo sidoo kalena xooga la saara dardarna la geliyo dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab iyo in la iska kaashado sidoo kalena ay dawladda gacan buuxda siin doonto maamul goboleedyadan iyagoo iska xoreyn doonaan dhawaana la filay in deegaano iyo degmooyin badan la xoreeyo aadan yabaal ayaa mar kale dawladda ay dib u soo abaabuleysaa in ay ka qabsato deegaanadaasi halka la filayo ceelbuur in la qabto gabi ahaanba oo sidaasina ururka al-shabaab gobolka Galguduud dib loogu sajiyo gacantoodana deegaano badan oo ku jiray ay mar kale dawladda u qabsato halka dawladda federaalka Soomaaliya ay gacan buuxda macawsleyda iyo daraawiishta Galmudug ay ka heleysana ay mar kale ku dhiiradaan in mar kale gobolka Galguduud laga bilaabo guluf calaayad dhinaca kalena maamulka Hirshabeelle ayaa isagana dib waxa loo abaabulaya in mar kale ay ciidamada macawsleyda iyo sidoo kale kuwa Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya mar kale ay dib u qabtaan aadan yabaal oo ay ururka al-shabaab wali ku sugan yihiin isbuucii horena ay la wareegeen dhinaca kalena iyadana waxa la filayaa in guluf calaayad laga bilaabo Shabeellaha Dhexe Shabeellada Hoose aandhaha iyo sidoo kale Bay oo halkaas ururka al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay kana ay ku xooganaayeen dhaqdhaqaaqyada militariga ay ka wadeen ugu dambeyn daawade waxaan ku sheegayaa in guluf colaaleed oo ka dhan ururka al-shabaab dalka uu ka bilaawday maamul goboleedyadana ay hoosta ka xariiqeen in mar kale ay dagaal xoog la galaan ururka al-shabaab dawladana ay heshiis buuxda la gashay halkaasina ay ku istaagtay khilaafyadii soo noqonayay u dhaxay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ahaatee hadii aad inta nala soo gaartay daawada waxa tahay saaxiib wanaagsan fadlan muuqaalka like iyo share gareey gaarsii saaxiibadaada mahadsanid